ballanqaadkii Alle. Fircoon ayaa habeen habeenada ka mid ah riyooday, wuxuuna arkay arrin ka yaabisay. Wuxuu ku riyooday naar ka timid dhulka Falastiin oo gubaysa wax kasta oo kasoo horbaxa, waxaana la yaab ahayd inay naartaasi soo gaartay waddanka Masar oo ay dhammaan baabiisay guryihii iyo hantidii Fircoon. Arrintan naxdinta leh waxay ka yaabisay Fircoon, wuuna ka seexan kari waayey. Fircoon waxa uu u tagay sixroolayaashii iyo kuwa riyada fasiri jiray, wuxuuna u sheegay riyadiisa, waxayna dhammaan isku raaceen in reer bani Israa'iil uu kasoo bixi doono canug yar oo afgembin doona boqortinimada Fircoon iyo addoonsiga uu ku hayo reer bani Israa'iil. Fircoon waxa uu isugu wacay wasiiradiisa, la taliyayaashiisa iyo intii ka agdhoweed. Kadib go'aankii waxa uu noqday in la dilo dhammaan carruurta reer bani Israa'iil. Fircoon waxa uu diray ciidamadiisa oo ku sii daayay dadkii masaakiinta ahaa ee reer bani Israa'iil, waxayna dileen dhammaan carruurtii oo dhan wixii wiil ahaa. Nebi Muuse hooyadiisa markay umushay waxay u cabsatay wiilkeeda, qalbigeedana waxaa galay walwal iyo murugo. Kadib Alle ayaa u waxyooday Nebi Muuse hooyadiisa, waxaana la amray inay samayso sanduuq ka samaysan loox, kadibna ku riddo Nebi Muuse kuna tuurto biyaha badda. Alle wuxuu ku yidhi Nebi Muuse hooyadiisa, ha ka cabsanin, hana ka murugoonin, waxaana Alle ballan qaaday in ilmaheeda u soo celin doono dhowaan, kana dhigi doono rasuul iyo nebi. Nebi Muuse hooyadiisa waxay ku turtay sanduuqii badda, sanduuqiina waxaa qaaday mawjadaha badda, waxayna geysay xeebta. Kadibna waxaa helay sanduuqii shaqaalaha qasrigii Fircoon. Sanduuqii markii la furay waxay ka heleen canug aad u yar oo wejigiisa nuurayo. Isla markiiba Fircoon ayaa loo sheegay, sidoo kale way gartay inuu yahay reer bani Israa'iil. Fircoon waxa uu ku yidhi dila, laakiin xaaskii Fircoon oo ahayd qof qalbi wanaagsan ayaa waxay dhahday, ha dilina, waan ku indha qaboobsanaynaa, waxaan laga yaabaa inuu ina anfaco ama aynu ka dhigano ubadee. Fircoon ma danaysana inuu yahay canugii isaga dartiisa uu u dilay carruur badan oo reer bani Israa'iil ah. Nebi Muuse hooyadiisa waxaa ku dhacay walwal iyo walbahaar, waxayna amartay Nebi Muuse walaashiisa oo ku dhahday, bax raadi oo wadh iga keen canugayga haddii uu qof qaatay ama la dilay. Kadib waxay ka heshay Nebi Muuse qasrigii Fircoon. Waa cajiib, Nebi Muuse hooyadiisa waxay ka cabsanaysay in Fircoon wiilkeeda arko, haddana waxaa loo raadinayaa gabar naas nuujisa. Nebi Muuse walaashiisa markay aragtay walaalkeed Muuse oo diidaya dhammaan habeenkii isku dayaya inay nuujiyaan, ayay ku dhahday, miyaan idin tusiyaa cid nuujisa? Waan idinla talinayaa. Xaaskii Fircoon waxay ku dhahday, ubax haddaad garanaysid cid nuujisa. Muusena gaajo ayuu la oynayaa. Kadib Muuse walaashiisa waxay u timid hooyadeeda oo u sheegtay arrinta. Nebi Muuse hooyadiis waxay soo gashay qasriga, isla markii ay aragtay canugeeda waxay ku dhawaatay inay isfashiliso, laakiin Alle ayaa qalbigeeda sugay. Alle wuxuu u soo celiyay canugeeda si ay ugu indha qaboobsato una murugoon, iyo si ay u ogaato in ballanta Alle dhab tahay.